Kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda Mudane Xasan Ibraahin Cabdulle ayaa xilkaasi rasmi ah ugu kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Jawiil Mudane Mahdi Yuusuf Maxamuud iyo gudoomiyihii hore ee degmada Cabduqaadir Cabdi Cabdullaahi. Munaasabadda ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada Jawiil waxaana ka qayb galay gudoomiyaha degmada Beledweyne Mudane Cumar Calasow, gudoomiyaha degmada Matabaan, gudoomiyaha degmada Geeljir, taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Maxamuud Xasan Ibraahin Baakaay, mas'uuliyiin kale. Munaasabadda ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada Jawiil waxaana ka qayb galay gudoomiyaha degmada Beledweyne Mudane Cumar Calasow, gudoomiyaha degmada Matabaan, gudoomiyaha degmada Geeljir, taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Maxamuud Xasan Ibraahin Baakaay, mas'uuliyiin kale iyo boqolaal ka mid ah bulshada degmadaasi. Mas'uuliyiinta madasha ka hadla ayaa bogaadiyay waxqabadkii gudoomiyihii hore waxa ayna si diiran u soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee degmada Jawiil Mudane Mahdi Yuusuf Maxamuud iyagoona u rajeeyay inuu shaqada si hufan u guto. waxaan leeyahay waa maasantiin xil wareejintan aad ka qurux badan lacaa waxaan marqaati ka nacnay wanaagga iyo quruxda iyo soo dhaweynta aad ka qurux badan ee reer Jawiil waxaan rajaynayaa insha Allah guulo badan iyo waxaan rabaa inaan dhaho gobolka Hiiraan oo muddo badan xil wareejinada qofka mas'uulka ah la magacaabo ay ku adkeed inuu mas'uuliyadda wareejiyo in sunno fiican oo dowladnimo inay gobolka Hiiraan ka bilaabato xaqiiqatan waa wax lagu farxo waxayna ku dhiseen isku duubnaantooda dawlad uma dhisin hay'ad uma dhisin waa wax cajiib ah iyo aad baan sharaf ugu leedahay waana ku ammaanantiin waa soconaysaa baashaan ninba maray ku imaanaysaa hadduu ilaahay idmee ninba habeenkiisa waxaa la rabaa inuu gegsado dul qaato insha Allah waxaan ku leeyahay waxa tahay qof mas'uuliyadii loogu talagalay sidii loogu dhibto u gutaa tahay. Gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ayaa sidoo kale madasha ka hadlay iyagoona mid walba ka sheekeeyay isla markaasi waxqabadka iyo qorshayaasha horyaala maamulka degmada. maantana waad arkaysaan meesha xafladda aadka u quruxda badan leh oo maalmahan aan diyaarinaynay oo arkaysaan iyo meesha lagu qabtay sidii degmadan ay ku hormari lahayd ay ku shaqayn lahayd inaad garab igu siisaan warka waa idinku badiyay soo dhawaada waana u mahad celinayaa inta soo safartay oo noo timid oo xafladan caawa ka soo qayb gashay oo jidadkeena oo dhisnayn oo raf ah oo maaragtay hadda sidii yihiin la wada ogyahay soo martay waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo tiimka gudoomiyayaalka cusub iyo kuwa hore u joogayba oo Hiiraan inaan ka wada shaqeyno Hiiraan. Ugu dambeyn kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Xasan Ibraahin Cabdulle oo xafladda soo xiray ayaa xilkaasi rasmi ah ugu kala wareejiyay labada mas'uul isagoona u rajeeyay in maamulka cusub uu si hufan u guto howlaha loo igmaday. Design-ka qurxan iyo isbitaalkii saldhiggii inay leedahay degmada Jawiil waa farxad gooni ah ii tahay waliba boqolkiiba 99 ay dhisteen dadka degmada degan ee Jawiil waxa lagu dayday degmada Jawiil ee waxqabadkaas quruxda badan ee bulshada isku tashiga ay sameeyeen hay'adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan gobolka Hiiraan waxaan leenahay degmadan isku tashiga sameysay ee kaligeed wax qabsatay inta dhiman ha loo dhameystiro oo ugu horeeya leerarka cadceedka ku shaqeeya korontada oo ilayska ku shaqeeya sababtoo ah waa degmo muhiim u ah soo socodka gobolka Hiiraan annagana waan kala shaqeyn doonaa hay'adaha samafalka gobolka Hiiraan inay ka shaqeeyaan qaybaha gurmadka ugu horeeya maadaama ay jiraan abaara waxaan rajaynaynaa in dadka ku nool degmada Jawiil iyo eeriyadeeda ee culeysyada haysta Ilaahay ka dul qaadi kara lanka waxaan rajaynaynaa in laga fududeeyo waxyaabaha yararka ay u baahan yihiin la qaban karo ama ay hay'adaha samafalka ama maamulka ay kaabi karaan maamulka cusub oo degmada Jawiil Mahdina waxaan rabaa aan ku boorinaa inuu halkan ku soo dhawaado kaaba geliyo soo socodka shaqada iyo habsamo socodka